بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليان ملك استاجوبتان إن شاء الله تعالى كليب كان وحن دوني إن أنا دي كسو قد بيو أو أنتي إلهي سبحانه وتعالى ويقرن سيو أي كجوابنو سيدي ديغريغا فائدة وبهلي كرتا مثلا ديغريغا marka ay noolaalayaal adkaarta akhrisanayno ajarka dikrigu weyn helayna oo Allah subhanahu wa ta'ala uu inasiinaya waa xaqiiq laakiin waxaan u jeednaa isbeddelka xagga naftaada ah iyo xagga noloshaada ah sideedaad ugu arki karaysaa dikriga waa maxay sirta ka maqan ee aad doonayso inaad fahamto walaalayaal in badan waxaan jeclahay walaaluhu qaarkood way ku amal falaano way fahmaan qaar badan laakiin inta badan ma fahmaan oo xamaasadda ayaa qaada walaalayaal sirta ugu weyn waxay tahay koow waa dikriyeysa qowlkaaga iyo qalbigaaguna way kala socdaan qalbigaaguna sibuu fikraya wax kale ku mashquulsan yahay waxaad ku dhawaaqaysaa dikri kale marka waa dikriyeysa qowlkaaga iyo qalbigaaguna way kala socdaan waa number 1 2 waa dikriyeysa wax kale ayaad ka fikraysaa maskaxdaada mashquul ku tahay waa dikriyeysa mobilkaad ku jeedo mashquul ku tahay saas awgeed ayaa waxa laga yaabaa walaalayaal inay tahay sababaha dib kaaga dhigaya in xaggii akhlaaqiyadka iyo qiyamka sooban ee naftaada aad doonaysay inaad maxaan ku raaddaa dikriga midha ka hesho noloshaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku wanaajiyo oo sacaadada nolosha aad ka hesho haddii noqoto xaggii nolosha caadiga oo ilaahay ku wanaajiyo ku islaaxiyo iyo naftaada iyo islaaxdaba halkaasaad ka tabaysaa taa beddelkeeda walaalayaal waxaa laga yaabaa oo suurtagala walaalayaal in qofku dikri badan akhriyo haddana rafaad iyo tacab iyo jir xanuun iyo mushkilad uu dareemayo uu isleeyahay waa dikriyeysaa ilaahay waad xusaysaa haddana xaaladaadu waa sidee walaalayaal sirtu maaha tiro badan oo akhrido dikrigu horta koow waa qalbiga khushuucsan asalkiisuna waa ikhlaas lillaahi subxaanahu wa tacaala marka dikriyeysa haddaad istighfaartii tusaale ahaan aad ka fikirayso inaad lacag ku hesho oo keliya oo ujeedadaadu taa tahay oo lacagtii iyo adduunyo iyo aad doonayso inaad ka fikirto walaalayaal way culus tahay natiijo badan oo aad noloshaada ka aragto laakiin ajarkii istighfaarta waad helaysaa oo malaa'igtu dee wanaagga aad ku hadlayso way qorayaan dikri walbana waa sidaas مثلا markaad istighfaarsanayso ka fikir xumaanta dambiga aad ka istighfaarsanayso dambiyadaadii hore ka qoomamee dambiga aad markaa ka istighfaarsanayso ka fikir oo go'aan gaadh inaad dambiga dib ugu noqon deetana Allah subhanahu wa ta'ala marka toobada dhabta loo leeyahay inuu ka aqbalayna qalbigaaga ku soo xaadiri oo Allah ka fikir subhanahu wa ta'ala sidoo dambiga kugu dhaafayo sawiro noloshaadii oo isbedeshay oo fiicnaatay oo dambiyadii ka fogaatay oo ilaahay u dhawaatay oo islaaxday xaaladaadii maadiga ahayd iyo tii nafsaaniga ahaydba iyo tii qoyskaaga u islaaxday saasoo kale walaal dikr walba sida saxda ah iyo macaanida dikriga ka fikira مثلا walaalo badan waxay ku saliyaan nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxay aad u jecel yihiin nabi maxamed inay arkaan sallallahu alayhi wa sallam deetana waxay leeyihiin nabiga waan ku salinaa weli maan arkan maxaa qaldan ma ogtahay saliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam walaalayaal haddii aynu kaftamayno iyo haddii aynu si dhab ugu saliyayno in Allah subhanahu wa ta'ala uu inaga aqbalayo isla markaana deeqdii ilaahay ku bixinayo uu ku bixinayo Allah uu ku bixinaya oo dambi dhaafkii uu kugu jira oo ilaahay baa kugu dambi dhaaf hamigaagana ilaahay baa kugu gudo subhanahu wa ta'ala sidee baad nabiga u arki leedahay sallallahu alayhi wa sallam nabiga ma jeceshahay alayhi salaatu wa salaam jacayl dhab ah oo aad yani aad uga fikirayso ma jeceshahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ma se ogtahay walaalayaal oo ma ogtihiin in nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam
marka aynu ku jirno maalmaha aan khamiista gelika dambe ee jimcaha ahayn in malaa'igta ilaahay ka mid ay u qaabilsan yahay uu kaa gaadhsiinayo oo nebi maxamedna uu og yahay oo magacaaga uu baranayo oo u yaqaano oo allah subxaanahu wa tacaala ku yaqaano oo carshur raxmaan lagaa xuso ilaahay 10 jeer adiga kugu saleeyayo oo naxariis tahay oo dambi dhaaf tahay oo wanaag badan ay tahay oo mararka qaarkood marka aad yaaban tahay aad u xiis naftaadu ay u xiistay saligii nabiga sallallahu alayhi wasallam qalbiga qaboojin lahaa oo naxariistii rabbaaniga baad u xiistay wad isfahmi laada maxaa ka qaldan basle aragtida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aynu markaa bal eegno مثلا qofka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku saliya maalintii 300 oo jeer waxa lagu qoraa diiwaanka dadka ku saliya nabiga sallallahu alayhi wasallam qofka joogtay maalintii inuu ku saliya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam 500 oo jeer qofkaasi ma dhinto oo dhiman maayo jeer oo la tuso mawqica ama positionka meesha maqaamka uu jannada ku leeyahay booskaaga jannadu waa kaas ayaa lagu oran ama inta cimrigaaga wax ka dhimayn ha lagu tuso ama markii naftu kaas bixi doonto ha lagu tuso ilaahay baa xikmadaas leh dadka qaar baa lagu bushaareynaya si arkaya 500 marka joogtayso qofka ku saliya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kun jeer ma dhimanayo ilaa uu arkay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waad arki doontaa haddaba waxa jira dad waqti walba nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam arka oo habeen walba arka ku riyooda baa jira markii ku saliya nabiga alayhi salatu wasallam jawaabtiisa oo nabigu uu jawaabay maqlaya okay ma khasaba nabi maxamed in aragta alayhi salatu wasallam masajiraan in aad يعني نبي أوجاتو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه كور هي صليقاك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكور قبا صليقا أبكو صليسو ونكوزو جوابه صلى الله عليه وسلم أو كو عليا صليقا أبكو صليسو هذا بقى صليقا النبي عليه الصلاة والسلام مركاتسي رب وجعيل أدو صليسو صلى الله عليه وسلم waxa laga yaabaa in qof kale oo yani saalixa inuu riyo ku arko adigoo nabiga kaleey salaatu wasalaam la jooga Allahumma salli ala Muhammad adigoo yani si ugu arko nabiga adoo ka agdhow sallallahu alayhi wasallam walaalaha qaarkood oo ku jira gruubadeenan ahlu dhikriga wallahi billahi tallahi ilaahi ha u barakeeye ما قياسك كرنا درجة دول ميشا أي مريسو يسيد إلهي سبحانه وتعالى وانفعي وحيبها قار كودنا يعني لما سوى بدي كرو نتيجة خيالية أي نقنيسة مثلا واحد شفتنا سيقو كم إذا سيقوين كسيلي النبي عليه الصلاة والسلام لو وصل ليه أوقف كم إذا ولا لها قرآن كوتشو يعني قربة كوتشورة isla markaana ku xiran kanaalka barakada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam aanu ku wada saliyeynay qofka kaas oo dadka ilaahay kashfiga siiyay deedetana أنا روح إنه بوقاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن سيقظ قبسنا والله أعلم والله بالله تالله وحن شعل أنا قف كاسين يعني دواقئه الله أكبر ما قياسي كرنا نتيجة داس هل كاك صباح ذي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني نبي محمد كوب وقته هل كيسي مركب يعني وسيقين كم يسيقين كسلك النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بنا قصين أي نتيجة داس وحكى له أكثر تولى ليال سيقة كم إذا سيقين كي يعني سوق بني أو أي نريد تضباط الشر قفك كآخري واللي بس يقدر جارها قفك تضباط الشر كآخرية وحقوا أركضون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لك لدون با سيابو كله وغير فالعليي إن ولا لها قار كمذا ولا لها سي يهلو خيرك إلهي سبحانه وتعالى وحط سي سيقضى وحن كسو تشيدي أنا وأنا لها سيدي أن كسو تبنايي إن اللهم صل على محمد صلاة كستين تبان شاء الله خير قف كاس
waxaa lagu yidhi salaad kasta 40 jeer akhri adigu salaad kasta 40 jeer akhri walaalshaas waliba waa gabadh waxay ka mid tahay walaalaha ahlu khayrka waliba Kenya ku nooshahay ma magacaabayno maalintii iyadu go'aansato inay tabiso qisadaas weyn la wadaagi doonta insha Allah ta'ala isla siiqadaasi qof kale ayaa wuxuu ku arkay isna qaab kale adoomaha Ilaahay kamida oo siiqadaasi ugu salinay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo iftiin iyo nuur iyo yaani nabi maxamed kaleey salaatu qol ku jiro u socda ay adoonka kalena yaani qofka kalena arkay wasla siiqadan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sabiq lil khalqi nur wa rahmatul alamin duhur waxaan uga jeedaa walaalayaal sirtu ma hatira badnaan laakiin sirtu waxay tahay horta yaqiinta iyo Allahumma salli ala Muhammad in qalbigaaga iyo qowlkaaga ay wada socdaan inaad ku dadaasho waliba waqtiyada gaarana insha Allah aad yeelato intaad mashquulka tahay oo kala waad waday kartaa khayrku ku soconaya laakiin aad fadhiyo gaar yeelato digri walbana wuxuu u baahan yahay in la daa'imo مثلا mararka qaarkood talada marka ka leexato talada saxda qaadan weydo naftaada waxa laga yaabaa in ku qurxiso 20 ka maalmood ama 30 ka maalmood digriga wad kadibna digriga kala wad kadibna digriga kala wad because waxa doonaysan inaad natiijo u hesho laakiin walaalayaal ma ogtihiin in Allahumma salli ala Muhammad qof kasta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaani uu siinayo digri u gaar oo dadka qaar way wadaagi karaan laakiin Ilaahay digrigaaga ku tusayo oo qaaf marka qaarkood riyaal ugu tusayo taas ma ogtihiin inaad digri leedahay ma ogtahay oo loo baahay digrigaagaasi inaad kal majnuun aad u akhrido sida qof walan oo kale yaani ugu celceliso u badiso ama tirada xataa u qaban ma ogtahay tirooyinkan aynu sheegaynay inaan xadiis sugaya jirinba oo 30,000 jeer istiqbaarsa laakiin adkaarta markii nabiga kaleey salaatu wasalaam aragno in subaxdii yaani 100 jeer istighfaarsan jiray oo kale badiyana waa leeyay badiya marka ma aha inaad tiraahdo muddadaas bish digrigaas aan qabsanaya qaabka leadership hogaamin noocaas in qaadato ma no cadifadaada iyo shaydaanku ku qurxinay waswaas weeytaas waswaaska qayb kamid noqonaysa dadka ahlul cilmiga ah walaalayaal waxay leeyihiin digri kasta si qofku uu natiijadiisa u arki karo على الأقل و40 maalmood qofkaas uu digriga aad u daa'imo si ikhlaasa ila 2 bilood ila 6 maalmood ka badanna waa fiican tahay oo مثلا culimada waaweyn يعني awliyaa الرحمن ka kamid ah waxa jira caalim culimada waaweyn kamid ah aad u wada taqaanaan oo digriga la ilaaha illa allah oo kaliya 20 sanadood waday culimada qaarkood 7 sano digrigiiba wada jireen anaga marka degdegeen iyo fudeedku muxuu yahay inagu jira oo aynu marba digri ugu wareegayno midda labaad ma ogtiin muuqaalada kala duwan ee daawanayso inaad ku wareerayso cilmi ahaan daawo cilmi ahaan u qaado laakiin digriga gaar ah ku ahaado caadiyana walaalayaal sidaan ku talinay jadwalka adkaarta raaca inta badan oo markaad salaadaadi sugto sunayaashaadi sugato salaada digri ka dambeeyay raacso hadaan wada garan adkaarta bacda salaad akhriyana qul wal 3 jeer subhanallah 3 jeer alhamdulillah 4 jeer allahu akbar qul wala 3 jeer bar bil falaq 3 jeer bar bina 3 jeer ayat kursi enough kadibna digrigaaga iska gal digriyada kale ee aad jeceshahay boqol ka akhriso it's good dadka qaar ba markii 10 jeer astaghfirullah yiraahdaan muraadkii leeyihiin bay Ilaahay subhanahu wa ta'ala siinaya dadka qaarna markii konton kun akhriyaan xataa waxa arki maayna natiijo sirtu waa qalbiga waa ikhlaaska walaalayaal waxaan aad u jeclahay inaad waswaaska iska daysaan inaad iska daysaan waxba aydan ka fikiran tiro badan laakiin inta yale aad ka fikirto waad gaari oo Ilaahay ba ku furi doona subhanahu wa ta'ala oo wardigaaga markaad riyo ku aragto wardigaagaas tiro la'aan kuliba ku akhriso gelin hore gelin dambe habeen waqti walba akhriso kal majnuun
qof kawaalan uu iska daldalmo ugu daldalan digrigagaasi wallahi waxaad arki natiijo khiyaaliya cajiib ah ilaahay baana asraarta fura subhanahu wa ta'ala marka boodbood ka badan iska yareeya marka wax eegayso cilmi ahaan u qaado laakiin digrigaagu ha ku koobnaado hal digrina xooga saar inta kale adkaarta kale boqol ka akhriso waxba kumanaanka iyo tartama iyo nooca iyo hagelin khayrka in lagu tartama way fiicantahay waa sax laakiin waa in naftaada la tartanto taxaddi naftaada la tartanto oo waxaan ka doonayaa digriga inaad samayso waxaad tira qabso waqtigaas 20 daqiiqo 10 daqiiqo salahan qabso 10 daqiiqo maskaxda digrigaas aan siinayaan ku celcelinaya tira baa ku noqoto waa sax dadana waad baran insha Allah ta'ala walaalayaal haddaba qofkii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam saligiisa badiya laga yaabo qof kale oo saalix oo wanaagsan inuu arko isagoo nabiga ka agdhow sallallahu alayhi wasallam adigana maqnaanshaha uu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ka maqan yahay ma aha habar adig ugu dhacay laakiin wana nasteexi ku tahay waxa jiri karta laba arrimood in suurtagal tahay in jiraan waxyaabo ka mancinaya aragtida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam adiga inaad nabiga maxamed aragto waxyaabo ka mancinaya in jiraan oo il kugu dhacday oo il ku haysa oo kale in suurtagal u tahay ama xasadku asiib wax ku asiibay ama sixir mushkilad ku haysatay in sabab u tahay waa suurtagal waxa kale oo suurtagal ah marka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam sababtu kaaga maqayeen tahay wali heerkii cibaadada iyo aqeedada iyo laga doonayna oo aan wali soo gaadhino degab baad iska tahay oo adigan xanti geliyo beenti sheegayo oo iska axbaya badan iska dhaxdabaalanaya waayo qofku markuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu arko sallallahu alayhi wasallam ma kula tahay in kadib leexleexad in يعني مناسب وطاي إن الله حتى حمد مسوى قف عادية نقطة is it possible صورة كلمة therefore واحد شرته وحلاقيه بين مرحلة نحرس إلهي سبحانه وتعالى كون حارسني والنبي محمد كودر كوارك أيوه مرحلة دي أتكوارك لأن قاعدين إني تاهي لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واد أركيسا وأنا هبال وأنا كابر ومرك النبي صلى الله عليه وسلم تاكوب بشاريسته ومروا البؤجادة قرآن كريم كولا لأخرس كيس الدائمة أو توكتية أو قفك ختم القرآن سمين كرا أدبن أدي رجلني ولا لا ختم القرآن كسمي إخلاص وقلا ختم القرآن ولا لا سورة البقرة إخلاص وآخرية ولا لا إله سبحانه وتعالى وكوجر جاري والله هذا أنا تقرأني سورة البقرة كلمة التوحيد كوعلى لا إله إلا الله القرآن كده بس التوحيد كم الاسم قل هو الله أخرسه فاتحة أخرسه ترضى دون تأخري دلال إلهي وحن كبر يا ولا ليا من طريقة حقائق نفهم سيه سجنانتني إلهي سبحانه وتعالى إنه نفهم سيه ولا ليا المهم الدو حويان يا كهجيا مركز الشيخ ليده هي معروف لو قنعسي لو ضي قانا سحنان تيسه oo aad ku lagu wada kalsoon yahay oo ku hagayo waa sax laakiin hadana sheekh isoo noocaas oo lagu wada kalsoon yahay haysan adkaarta kalena boqol ka akhris saliga nabigu ha noqdo wardigaaga ugu weyn waayo qofkan sheekh lahayn nabi maxamed oo sheekh sallallahu alayhi wasallam qofka nabi maxamed oo sheekhiisa noqdo qofku nabi maxamed sheekhiisa noqdo sallallahu alayhi wasallam maxaa ka weyn soo sheekhi ugu weynaa ma sheekhiisa سلك النبي صلى الله عليه وسلم مهمة أوليه لا عدد ولا حساب أخلاقيات كاجا وناك سناني سلوكيات كاجا وناك سناني فتعيش ابن آدم كون الله تعالى كوب قليل لو تعالى هذا محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الناس إن الله كوتش على هذا أو النبي محمد كوتش على هذا صلى الله عليه وسلم وضدك سناي كوتش على هذا بدي سلق نبيك صلى الله عليه وسلم خير كما مقنا ولا ليال وحي أن خلدي ونفتي ذي الشيطان وحي أن أصيبنا ومن الله سبحانه وتعالى وحن إلهي كرتين يا رسالة يا موقال كان أنا دسودين دونه مركو كسو قادو إنه نقدمتكو أنفعه ونلوش هذا وحكا بدله أنيقنا ميزانك إخلاصك يا حسناتك
قلبي إخلاص ويقدر عمل إخلاص لله يقدر أو ميزانك حسناتك إي آخر بينفعه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.